waxay rabeen inay qiyaasaan habeenka Laylatul Qadarka uu dhacayo waxay dhaheen suuraddu waxay ka kooban tahay 5 aayadood 5 aayadood bay suuraddan ka kooban tahay Soomaha waxay dhaheen habeenada witirka ah ee 10ka ugu dambaysa Ramadaankuna waa imisa waa 5 22 waa 1 23 25 27 29 waa 5 habeen Soomaha suuradduna waa 5 aayadood waa la isku beegay waxa la yaab leh suuraddan waxay ka kooban tahay 5 aayadood laakiin markii la tiriyay jumladaheeda kelmadaheeda la tiriyay waa 30 waa tiradii bisha Ramadaan iyo iyadiina la isku jaangooyay waa 30 bay ka kooban tahay suuraddan waxay dhaheen habeenkii Laylatul Qadarka si loo qiyaaso bay qiyaaseen waxay yiraahdeen kelmadda leh Laylatul Qadr marka la dhaho waa 9 xaraf waa 9 xaraf Laylatul Qadr waa 9 xaraf saddex goor baa la soo celceliyay Laylatul Qadr Laylatul Qadr hadana Laylatul Qadr hadana Laylatul saddex goor isku dar 9 waa 27 culumada waxay yiraahdeen waxaad moodaa qiyaas bay ku dhufteen habeenkii Laylatul Qadarka inuu ku beegmayo habeenka 27ka iyagoo xisaabaha isku dardaray waa qiyaas bini aadan wali waxyi ma aha aayad quraanana ma oran xadiis nabina ma oran alayhi salaam laakiin waa qiyaas culumadu ay qiyaaseen aad bay u qiyaaseen waxay marka fiiriyeen markii isku dardareen kelmadahaas ay qiyaaseen iyo waxay arkeen qiyaas armi halka noqon karta waxa la yaab leh waxaan nira 30 kelmadood bay ka kooban tahay suuraddan maaha kelmadda la yiraahiya u fiirso inna anzalnahu kasoo bilow salaamun hiya kelmadda la yiraah salaamun hiya xarafkay tahay iyo kelmadday tahay ma taqaana waa 27aad malka salaamun hiya markii la yiri 27 way markaas waxay dhaheen mar labaad bay hadana sidii ugu egtahay salaamun hiya iyadii waa nabadgelyo salaamun hiya waa 27 marka saddex baa ka dambeeyay marka qiyaasahaas oo dhan bay ku dhufteen laakiin ilaahum baa garanaya waxa lagu qiyaasayaa 10ka Ramadaanka ugu dambeeya tirada dheer maxay tahay 27ka qiyaasaas aad baa loo badiyay laakiin cilmigeeda xaqiiqdeeda ilaah baa garanaya mucjizooyin dhowr suuraddan laga tiriyay dhowrka mucjizo laga tiriyay waxa la amaanay Laylatul Qadr intaas oo amaana la amaanay amaanaha Laylatul Qadarka lagu amaanay culimadu waxay ka tiriyeen 14 iyo 10 amaan isla suuraddan kaliya suuradda oo dhanba waa 5 aayadood suuradda oo dhan waa 5 aayadood Laylatul Qadr waxa laga tiriyay mucjizo habeenkee bay noqonaysaa Ramadaanka ciidina ma oga Nabi Maxamed wuxuu yiri alayhi salaam waa la ii sheegay habeenka Laylatul Qadarka haddana waa la ilowsiiyay waan iloobay marka ma aad uma xusuusto laakiin wuxuu yiri qiyaastayda waxaan ku qiyaasayaa 10ka habeen oo ugu dambaysa Ramadaanka inay tahay waliba tirada isdheer sida 21 23 25 27 iyo 29 inay noqoto baa laga yaabaa culimadu waxay arkeen suuraddan mucjizay leedahay Laylatul Qadarka la amaanaya inna anzalnahu quraanka waxa laga dhigay majhuul waxaan la garanay sidii loo weyneeyay inna anzalnahu fi Laylatul Qadr habeenkii Laylatul Qadarka yaan ma aragtay soo dejinay وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر محاد كجرانيسا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر محاد كجوالوينين وهابين لياب ليلة القدر وحان وجود شيء إن مسلمين تا قاربة وحي مودان سنة كوردن انت إله عاسيان وخلط سميان ودم بجلان بشهر رمضان إن إله عابدان وسلادة كدان وصومان ومركا ليلة القدر كهبين كليرا وقارصدان هبين كليلة القدر كأي في عنادان ودد في عنو مسلمين النقدان ومودا سيدا inay ku dhamaatay markuu Ramadaankii Laylatul Qadarka dhamaatana meeshoodii kamaysa wax ka jira ma jiraan dadkaas waxay caabudayaan Ramadaanka waxay caabudayaan Laylatul Qadarka Ilaahay ma caabudayaan qofka Ilaahay caabudaya 12 bilood ee sanadku inuu Ilaahay caabudo inta habeenoo jirto dhan waa inuu Ilaahay caabudo laakiin waxa la doonayaa Ramadaanka inuu sii dadaalo la doonayaa inuu sii dadaalo oo si fiicnada la doonayaa ee maahan macnaheedu maaha Ramadaanka kaliya Ilaahay u dhawo Ramadaanka kaliya Ilaahay caabud jazakallahu khayr adan Ilaahay Ramadaanka kaliya ina caabud lama doonay marka dadka maskaxda ka dhaadhiciyay habeenka Laylatul Qadarka isku beego hadaad habeenka waafaqdo khalaas way ku dhamaatay jannadaad gashay arinta waxba kama jiraan Laylatul Qadarka isku khaldin marka isku khiyaaneen Laylatul Qadarka macnaheedu waxa lagu talagalay muumin fiican oo soo shaqaystay oo Ilaahay caabuday inuu si fiicnaado darajo fiican ku sehla loogu talagalay ninka caasiga
inuu ku toobad keeno oo soo noqdo oo ilaahay uu ku caabudo ilaa uu ka geeriyoonayo ka dhimanayo xataa yaatiika alyaqiin baa loogu talagalay ee habeen inta la gaado hal habeen la ilaah la caabudayo inta kale laga tegayo ma aha dhowr mucjiso oo ilaahay noo sheegay suuradda noogu tilmaaman qaar ka taataabanayna wamaa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr waxa uu yahay maxaad ka garanaysaa laylatul qadri habeenka laylatul qadarka khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood markii la tiriyey sanado laga dhigay 83 sannadood buu noqday sidii habeenkaas qiimaha uu leeyahay 83 sannadood buu u dhigmaa culimada qaar waxay dhaheen alfi shahri markii la yiri kun habeen waxaa laga wadaa ka badan buu noqon karaaye tiradan baa la badiyay laakiin inta ugu badan culimada jumhuurta culimada waxay dhaheen kun habeen waa kun habeen 83 sano baa laga wadaa ka badan maaha ka yarna maaha habeenkaas waxyaalaha uu qiimaha ku sii leeyahay waxaa ka mid ah tanazzalu malaa'ikatu malaa'iktii ilaahay baa cirka ka soo degaysa malaa'iktii oo khayr wada malaa'iktii oo mataqana addoomaha ilaahay u ducaynaysa malaa'iktii oo ajarkii xasanaadkii qoraysa malaa'iktii oo nabadii ka shaqaynaysa malaa'iktii oo barako wada oo ilaahay u soo dhiibay baa soo degaysa ruuxii baa soo degaya gudoomiyaha malaa'ikta madaxa malaa'ikta waa jibriil ruuxna waa la dhahay isaga culimada qaarku waxay dhaheen maahan ruuxdii baa laga wadaa oo ilaahay ruuxdu garanaya macnaheeda xigmadeeda laga wadaa laakiin inta ugu badan culimada jumhuurta waxay dhaheen ruux waxa laga wadaa malaku jibriil baa laga wadaa habeenkaasay soo degayaan fiiha biidni rabbihim ilaahay rabbigii amarkiisay la soo degayaan ilaahay amarkiisa iyay la soo degayaan haddaa la cadeeyaa kitaabka soo dejiyey rabbi baa soo dejiyey amarka ilaahay buu ku soo degay malaa'igtu amarka ilaahay bay ku soo degeen malaku jibriil amarka ilaahay buu ku soo degay min kulli amrin amar kasta inay la soo degaan oo khayr qaba salaamun hiya salaamun in la dhahayahayd hiya salaamun laakiin balaqadan cajiibka ilaahay sameeyey salaamun hiya habeenku gebigiisuba waa nabadgelyo waa habeen nabad ah waa habeen salaan ah waa habeen khayr ah waa habeen ammaan ah waa habeen amni ah waa habeen mucjiso ah xataa matlic alfajri ilaa fajarka uu ka dhasho ilaa waaga uu ka baryo waa habeen nabad ah inta ammaanood oo la yiri kelmadda leh inna damiirkaas waa ammaan anzalnaahu waa ammaan laylatul qadr waa ammaan wamaa adraaka waa ammaan ما ليلة القدر هدنا وأمان ومقعد اللي سوعليه ليلة القدر هدنا وأمان كلا خير ويك خير بدنتها وأمان من 1000 شهر كن بلاد وأمان تنزل الملائكة ملائكة سودك وأمان والروح ملك جبريل بسودك وأمان كلا فيها بإذن رب إلهي أمر كيسي لسودك من كل أمر كسو خير لسودك وأمان كلا سلام هي وأمان كله حتى مثل الفجر وأمان كله أنت أمانة علماء كتري وحيدا وأفري طبعا إلى شان طبعا أمان هبينك كل اللي أمانة ولا قيمين ولا قدرين يا معنى وين بكفر يا